Nin ayaa waxa uu dhahay, maanta duhurkii markii xaaskayga ay iga furtay albaabka, waxaan dareemay in ay murugsan tahay. Waxaan weydiiyey sababta. Waxa ay sood ama cod aad u hooseeya igu dhahday, wiilkii. Waxaan u degdegay qolkii canuga. Aniga oo aad u xanaaqsan ayaa waxa uga sii gudbay qolka ilmahayga saddexda ah. Waxaan arkay mid ka mid ah ilmahayga oo sariirta ku fadhiya, asaga oo aad u murugaysan, indhihiisana ay ilmo ka sii qoyan tahay. Laabta ayaan geliyey. Waxaan gacantayda ka saaray daankiisa. Waan ka waayay calaamado ah in uu jiro yahay ama uu qandhan yahay. Mar kale ayaan su'aal ku celiyey xaaskayga. Waxa aan weydiiyey waxa dhacay, laakiin waa ay ii jawaabi weysay. Waxa aan dareemay inaysan rabin in ay ku hadasho wiilka yar hortiisa. Waxaan ugu baaqay gacanta in ay qolka jiifka aado, waana ka daba tagay markaa. Markii ay bilowday in ay iga sheekayso wixii dhacay saakay, waaban iska dareemay. Laakiin qisadu waxay lahayd dhammaad iyo bilow, balse iyada waxay ogeyd qaybta dambe. Inta hore ma aysan ogeyn. Aniga ayaana bilaabay inaan sheekada inteedii hore uga sheekeeyo, si ay u ogaato waxa dhacay. Qisada waxa ay ahayd, haddii aan soo koobo, waa in aan aad u jeclahay inaan dhex seexdo ilmahayga saddexda ah, labadayda gabdhood iyo wiilkayga, Asmaa, Caasho iyo wiilkayga yar. Waa ay u soo kala ordi jireen in ay ila seexdaan. Waxaa intaa u dheeraa in aan uga sheekay jiray sheeko carruureed markii ay seexanayaan. Gabadhaydii Asmaa waxa ay jeclayd mar walba inaan uga sheekeeyo sheekada Nebi Yuusuf calayhi salaam. Caaishana waxay aad u jeclayd qisada Muuse iyo Fircoon. Kan yar ee aan dhalayna, asaga oo aan waxba diidin ayuu sheeko walba iska dhegaysan jiray. Habeen habeenada ka mid ah waxaan weydiiyey su'aal, ma waxaan idinka sheekeeyaa Nebi Yuusuf calayhi salaam, ama waxaan idinkaga sheekeeyaa Nebi Muuse calayhi salaam? Wiilkayga yar ayaa soo booday, waxa uuna dhahay, waxaad nooga sheekaysaa Cumar bin Khadaab. Waxa aan aad ula yaabay dalabkaasi qariibka ah, aniga oo og in canugayga yar aan marnaba uga sheekeynin qisada Cumar bin Khadaab. Waan diiday in aan ka xanaajiyo ama aan niyad jabiyo. Waxaana uga sheekeeyey sheeko ku saabsan Cumar ibn Khadaab. Cumar waxa uu ahaa mid habeenkii socda, asaga oo dhagaysanaya ilmaha yaryar ooyintooda, oo hooyadood in ay biyo dabka u saarto uga sheekeynaysa sheekooyin, una sheegaysa inay cunto dabka u saaran tahay kana soo degi doonto. Markii uu arrintaa maqlay Cumar, waa uu ilmeeyey, waa uuna baxay asaga oo degdegsan. Waxa uuna soo qaaday jawaan uu ka buuxa bur. Hooyadii ayuu u keenay. Hooyadiina ilmihii ayay cunto u samaysay, kamana uusan soo tegin ilaa ay ka dhargeen oo ay ka seexdeen. Habeenkaasi waa uu seexday kii aan dhalay ee yaraa, asaga oo ku faraxsan qisada aan uga sheekeeyey. Isla habeenkii labaad waxaan la yaabay canugayga yaraa oo ka sheekeynaya isla sheekadii Cumar, sidii in aan duubtay cod oo codkayga aan ku soo ceshanayo, yacni waxba kama uusan tegaynin. Habeenkii saddexaad waxa uu canugaygii yaraa i weydiiyey inaan uga sheekeeyo sheeko labaad oo ku saabsan Cumar ibn Khadaab. Ku dhowaad hal bil ayaan uga sheekeynayay sheekooyinkii Cumar bin Khadaab. Marmar waxaan uga sheekay jiray Cumar sheekooyinkiisa gaarka ah, iyo markii uu Alle ka cabsanayo sidii uu u dhaqmi jiray, geesinimadiisa iyo awooddiisa. Habeen habeenada ka mid ah ayuu wiilkaygii yaraa i weydiiyey su'aal la yaab leh, miyuu dhintay Cumar ibn Khadaab? Waan dhihi karay haa, waa uu dhintay, laakiin waxaan ogaaday in uu aad u jeclaaday oo uu rabo in uu arko Cumar ibn Khadaab. Waxaana ka warwareegay su'aashaasi habeenno fara badan. Mararka qaar habeenkii lama seexan jirin wiilkayga si uu su'aashaas ii weydiin daraaddeed. Waan seexdaa keligay, sababta oo ah haddii aan u sheego oo aan dhaho waa uu dhintay, waxaa laga yaabaa in uu naxo. Subaxii markii uu baxayna hooyadii ayuu raacay. Markii ay suuqa marayeen, waxa uu arkay haweeney wadata canug yar oo oynaya. Canugaas yar waxa uu ahaa mid ay baahi haysay. Dadkii oo dhan waxa ay la yaabeen in wiilkaygii yaraa uu soo booday oo uu dhahay, ha cabsanin, ha nixin oo ha murugoonin, waxaa kuu imaan doona Cumar ibn Khadaab.
oo adiga iyo cunugaagaba idin sii doono cunto. Hooyadii dhashay wiilkayga ayaa xoogaa lacag siisay haweenaydii wadatay ilmihii yaraa ee baahida la ilmeynayay. Xoogaa yar markii ay soo socdeen, wiilkayga yaraa waxa uu arkay nin weyn oo awood leh oo dilaya nin daciif ah. Waa uu qayliyey si ay dadka ugu yeeraan Cumar ibn Khadaab si nimankan uu u kala celiyo. Hooyadii waa ay yaabtay markii dadkii oo dhan ay soo wada eegeen iyada iyo canugeeda yar. Waxa ayna go'aansatay in ay guriga ugu soo laabato si degdeg ah. Markii ay guriga soo galeenna waxaa shidhnaa TV-ga oo codkiisa aad u dheeraa. Wariyahana waxa uu ahaa mid ka sheekeynaya sida ay Yuhuudda u galeen Qudus iyo Falastiin, oo ay u dileen dad shacab oo muslimiin ah kuwaas oo aan waxba galabsanin. Dhalada ayuu u soo dhowaaday, mise waxa uu arkay ciidan Yuhuud ah oo dilayaan shacab muslimiin ah, weliba masjidka Qudus dhexdiisa. Wiilkii yaraa waa uu ilmeeyey, qolkiisa ayuuna ku orday, waxa uuna dhahay waa uu dhintay Cumar ibn Khadaab. Wiilkayga ayaan u tagay markii dambe, waxaana ogaaday sababta uu la ilmeynayay. Waa dhunkaday, waxaana u sheegay in hooyadiis ay uur leedahay ayna dhali doonto Cumar ibn Khadaab. Kadibna ilmadeeda ayaan qariyey, dhoola caddeyn ayaana wejigayga u beddelay si wiilkayga yar uusan ii dareemin. Niyadda ayaan waxaan ka dhahay, haa, Cumar waa uu dhintay, laakiin ma aysan dhimanin dhammaan hooyooyinka Islaamka ah kuwaas oo dhalay Cumar ibn Khadaab. Haddana niyadda ayaan waxaan ka dhahay, haa, Cumar waa uu dhintay, laakiin ma uusan dhimanin Qur'aankii Cumar ka dhigay sidaas. Haa, Cumar waa uu dhintay, laakiin ma aysan dhimanin geesinimadii iyo wanaaggii iyo awooddii ay lahaayeen ummadda Islaamka. Haa, Cumar waa uu dhintay, laakiin ummaddeena waxaa ka soo bixi doona kun Cumar. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.